Xogtan waxay sheegaysaa xiritaanka xafiiskani inuu la xiriiro safarkii dhawaan uu ku tegay madaxweynaha Somaliland dalka Itoobiya. Warbaahintan ka faallota arrimaha geeskan waxay sheegaysaa kulankaas ku dhex maray Addis madaxweyne Ciro iyo Abiy Axmed inay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal waa Somaliland iyo Itoobiya, xiriirka ganacsi iyo xiriirka siyaasadeed. Meeshana kama marna aqoonsigii sanadkii ugu dambeeyay Djibouti ay ka soo horjeeday dagaalkana ay kula jirtay. Sidoo kale kulankaasi ka dhacay Addis waxaa lagu lafaguray sidii beebabka ama tuubooyinka gaaska ee ka soo qaadi doona deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya loogu xiri lahaa Berbera si loo dhoofiyo gaaska Itoobiya. Maxaabiistan ku xiran laascaanood kooxahan hubaysan fadhigooda iyo Solbar wuxuu u yahay daafac, waxayna aaminsan yihiin inta maxaabiistaasi gacantooda ku jirta inaysan Somaliland weerar ku soo qaadi karin, halka uu doonaya Xasan Sheekhna maxaabiistaasi inuu ku raadsado dhibco siyaasadeed. Waana qodobka ugu weyn isku fahmi waayeen Xasan Sheekh iyo horjoogayaasha kooxahaasi hubaysan fadhigooda yahay Solbar. Maalmaha soo aadan waxaa la filayaa Xasan Sheekh markii hore Djibouti ujeedka u siinaysa helsiga ganacsatada Soomaalida waxay ahayd in ganacsiga iyo shixnadaha u socda Berbera ay hoos keento dekedaheeda, laakiin Djibouti xisaabteeda kumaysan darsan tallaabada qaadeen. Tallaabo kaloo kasii xag jirsan inay qaadi karaan Somaliland iyo DP World oo kuwana hadda Berbera la hoos keenaba ganacsigii dekedaha ee dalka Djibouti. Maraakiibta u socota Djiboutina waxay sii mari doonaan transit ahaan dekeda bismillah saaxiib beel ku soo dhawaada maal faraanigana waa Liibaan Maxamed Aadan aan ku bilaabay mowduuca caawi dalka Djibouti. Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalkaasi ee Djibouti wuxuu qorsheenayaa inuu wax ka bedelo dastuurka dalkaasi meeshan uu ka saaro qodobka xadidaya daada qofka madaxweynaha ka noqon kara dalkaasi. Dastuurka Djibouti wuxuu dhigayaa qofka daadiisu ka weyn tahay 75 jir inuusan dalkaasi madaxweyne ka noqon karin. Waana qodobka uu doonayo geelahaasi Djibouti inuu gebi ahaantiisba meesha ka saaro si uu mar kale uga qayb galo doorashooyinka loo madlan yahay dalkaasi inay ka dhacaan sanadkan ugu soo wajahan 2026. Ismaaciil Cumar Geelle daadiisu waa 75 sano, 26 sano ayuu soo maamulaya dalkaasi Djibouti, waana hogaamiye kaliya taliya macagaga madaxweyne ka horeeyay isaga ahaana madaxweyne ugu horeeyay dalkaasi Djibouti. Allah u naxariistay Xasan Guuleed Abdudoon daadiisa madaxweynahaas markay noqotay 75 sano ayuu xilkaasi wareejiyay 1999. Waqtigaana talada Djibouti waxa la wareegay geela hadda jooga oo noqonaya madaxweyne labaad dalkaasi uu yeesho. Muddadaas 26 sano geelaha Djibouti uu maamulaya dalkaasi wax isbedel kuma soo dhicin, mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid dhanka horumarka ahba. Waxaana ka jira Djibouti system cadceediisu aysan dhicinba, agaasimo waaxid ka soo bilow ilaa heer madaxweyne isma bedelaan, kaliya sida kaliya joogooyinka loo kala helo dalkaasi waa in la kala dhaxlo. Waxaad ku arkaysaa dalkaasi Djibouti wasiir in ku dhow 20 sano jagadaasi wasiirnimo dalkaasi ee ka hay, waana midda inta badan ku dhaliilaan geelaha Djibouti siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ee isbedel doonka ah loona diiday inay si cadaalad ah ula tartamaan geelaha Djibouti. Si weyn hadda waxaa looga cabsi qabaa si laga soo xiganayo ilo u dhow daliil arrimaha siyaasadda dalkaasi. Waxa ka bedelkan uu rabo geelaha Djibouti inuu ku sameeyo dastuurka dalkaasi si uu mar kale uga mid noqdo waa geelaha Djibouti ee musharaxiinta tartamaysa inay ka dhashaan qallaaso siyaasadeed oo horseedi karta geelaha Djibouti inuu qaado dhabiya ay hore u qaadeen hogaamiyaasha ka horeeyay ee kala taliyayaasha ahaa. Waxa ka bedelkan dastuurka ee Djibouti waxaa ka soo horjeeda siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda Geelle iyo shacabka dalkaasi oo hadda u muuqda kuwa uu dulqaadkii ka dhammaaday. Intaana kasii gudbin qodobkan Djibouti, warbaahin ka faallota arrimaha geeska waxay daabacday in dowladda Djibouti albaabada iskugu dhafatay xafiiskeedii ay ku lahayd caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Xafiiskaasoo marka hore door muhiim ah ka qaadan jiray ilaalinta xiriirka labada dal, haddase xafiiskaasi gebi ahaanba uu joojiyay shaqooyinkiisa sida lagu daabacay warbaahintaasi ka faallota arrimaha geeska. Shaqaalihii ugu badnaa xafiiskaasna waxay dib ugu laabteen Djibouti iyadoo sanadkii ugu dambeysay xafiiskaasi aan lagu arag wakiilka Djibouti u fadhiyay Somaliland. Xogtan waxay sheegaysaa xiritaanka xafiiskani inuu la xiriiro safarkii dhawaan uu ku tegay madaxweynaha Somaliland dalka Itoobiya. Warbaahintan ka faallota arrimaha geeskan waxay sheegaysaa kulankaas ku dhex maray Addis madaxweyne Ciro iyo Abiy Axmed inay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal waa Somaliland iyo Itoobiya, xiriirka ganacsi iyo xiriirka siyaasadeed. Meeshana kama marna aqoonsigii sanadkii ugu dambeeyay Djibouti ay ka soo horjeeday dagaalkana ay kula jirtay. Sidoo kale kulankaasi ka dhacay Addis waxaa lagu lafaguray sidii beebabka ama tuubooyinka gaaska ee ka soo qaadi doona deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya loogu xiri lahaa Berbera si loo dhoofiyo gaaska Itoobiya. Isticmaalka dekeda Berbera Itoobiya iyo aqoonsiga Itoobiya ay siinayso Somaliland waa laba qodob ee sanadkii ugu dambeysay Djibouti sida adag
ugu dagaalamaysay, waana midda hadda salab ku haysa xiritaankeeda xafiiska Jabuuti ay ku lahayd Somalilan. Waxaa ka dhex qarxay sanadka hore Jabuuti Somalilan xiisad salab ku haysay MOU-ga Jabuuti ay aad uga soo horjeeday. Xiisadaasna ay markii dambe heer wixii gaadhay inay safaraha kala qaataan labadan dal. Xiriirkaasna waxaa dib u soo celiyay sanadkani xukuumaddan hadda la wareegtay talada Somalilan. Ilaa haddana xukuumaddan kama aysan hadal xirnaanshaha xafiiskan Jabuuti ee ku lahayd Hargeysa. Mid ka mid ah shaqaalihii ka howlgeli jiray xafiiskaasi waxa uu sheegay xafiiskaasi inay rajo weyn ka qabaan in dib loo furo, laakiin muusan caddeyn waqti la furi doono. 2 sano ugu dambeysay Jabuuti iyo challenge adag wuxuu kula jirta Somalilan iyo shirkadda DP World maamusha dekedda Berbera, iyadoo Jabuuti 2 sano ugu dambeysana kordhisay baaxadda iyo adeegyada shaqo dekedeeda Doraale. Sidoo kale Jabuuti waxay soo saartay ama soo kordhisaba inay siiso ganacsatada Soomaalida LC-ga ganacsiga ay ganacsigooda ku soo marayaan Jabuuti, dabadeedna dhulka Soomaalida ganacsigaas u socday ay u soo gudbiyaan. Transit ahaan arrinkan wuxuu caqabad ku noqday ama wuxuu horseedaba maraakiibtii u socota Berbera in marka hore ay soo maraan Jabuuti, taasoo qarashka iyo waqtigaba ku kordhisay safaradii xamuulka ganacsiga tegi lahaa dekedda Berbera. dhowaan safarkiisii uu ku tegay madaxweynaha Imaaraadka, halkaas uga qaybgalay madaxweynaha Somalilan shirarkii looga hadlayay maalgashiga Afrika. Shirkaasi kadib madaxweynaha kulamo qaas wuxuu la qaatay madaxda ugu sareysa shirkadda DP World, waxaana la iska waraystay arrinkan ay soo kordhisay Jabuuti caqabadna ku noqday ganacsiga iyo adeegsiga dekedda Berbera. Kulamo saacado badan qaatay kadib waxaa la isla qaatay in la qaado tallaabo la mid ah tallaabada ay qaadeen Jabuuti. Tallaabadaas waxay noqotay in la isku xiro dekedda Berbera iyo dekedda gobolka ugu weyn ee Jabal Cali. 9 cishana mar Berbera ay ku kala gudbaan maraakiibta, taasoo ka dhigaysa Berbera inay noqoto xudunta ganacsiga bariga Afrika. Markii hore Jabuuti ujeedka u siinaysa LC-ga ganacsatada Soomaalida waxay ahayd in ganacsiga iyo shixnadaha u socda Berbera ay hoos keento dekedaheeda, laakiin Jabuuti xisaabteeda kumaysan darsan tallaabada ay qaadeen. Tallaabo kaloo kasii xag jirsan inay qaadi karaan Somalilan iyo DP World oo kuwana hadda Berbera la hoos keenaba ganacsigii dekedaha dalka Jabuuti. Maraakiibta u socota Jabuutina waxay sii mari doonaan transit ahaan dekedda Berbera. ugu dambeyntina ku saafmeera mowduucani caaway waxaa dib loo dhigay safarkii ku tegi lahaa Xasan Sheekh Laascaanood, waxaa la gaarsiiyey ilaa 1 bisha soo socota, inkastoo ay jiraan warar kaloo sheegaya gebi ahaanba safarkaasi in la kansalo la baajiyey, Laascaanoodna loo dirayo wafdi hogaaminaya Xamse Cabdi Barre. Sababta ugu weyn safarka Xasan Sheekh dib loogu dhigay waxaa lagu sheegay in la xiriirto maxaabiista ku xirnayd Laascaanood oo uu dalbaday Xasan Sheekh in lagu wareejiyo. maxaabiistana ku xiran Laascaanood kooxahan hubaysan fadhigooda iyo Solbar wuxuu yahay daafac, waxaana aaminsan yihiin inta maxaabiistaasi gacantooda ku jirta inaysan Somalilan weerar ku soo qaadi karin, halka uu doonaya Xasan Sheekhna maxaabiistaasi inuu ku raadsado dhibco siyaasadeed. Waana qodobka weyn isku fahmi waayeen Xasan Sheekh iyo horjoogayaasha kooxahaasi hubaysan fadhigooda yahay Solbar. Maalmaha soo aadan waxaa la filayaa Xasan Sheekh bedelka ku tegi lahaa Laascaanood inuu ku tago Kismaayo oo 7 ka hor Xasan Sheekh la soo laabtay weji gabax. maalmo ka hor Xasan Sheekh wuxuu safaro ku kala tagay Itoobiya iyo Kenya. Safaradiisa Xasan Sheekh waxay darnaayeen qorshe uu ku doonayay inuu maamul cusub ka sameeyo gobolka Godo, maamulkaasoo laga barbar sameynayo maamulka Jubbaland gobolkaasi uu ka tirsan yahay. Qorshaha maamulkaasi waxaa ka hor yimid oo diiday wadamada Itoobiya iyo Kenya, ayaguna ku amran wadamadaasi Xasan Sheekh mar labaad inuu tago Kismaayo ayna wada hadlaan isaga iyo hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Madoobe. qodobka weyn la isku hayo doorashooyinkana Xasan Sheekh ka tanaasulo, hogaamiyaha maamulkaasna isagana uu ayido aqbalo qodobada uu wato Xasan Sheekh. Shalay Xasan Sheekh wuxuu isugu yeeray qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamulada ka jira Soomaaliya, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. 2 ka mid ah hogaamiyaashaasi way ka hor yimaadeen qodobka doorashooyinka, laakiin wuxuu ku adkaystay Xasan Sheekh inuu tago Kismaayo una la soo heshiiyo Axmed Madoobaha ka taliya maamulkaasi. safarkana Kismaayo markuu soo laabtay Xasan Sheekhna waxaa la filayaa safar dibadda Xasan Sheekh inuu u baxo. Marka halkaas waxaa ka cad safarkii Laascaanood inuu soo dhamaaday. 20 bishana ayuu qorshe u ahaa Xasan Sheekh inuu tago Laascaanood. 20 bishana waxaa baajiyey arrintaani maxaabiista oo ay ka dhagaadeegeen ama ay diideen qaar ka mid ah garaadada Laascaanood maxaabiistaasi in la kala furdaamiyo labada dhinacba.